محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بمهد اسكاله سبحانه وتعالى عليه سوق كاني ساك أو صبح جمعة ومالين ونكسن أو عيدة وبركيسنة قوبتني أن سوقني مادنا إلهي وحن كبري إن كلنك يسويماتنك iyo golahaba ilaahay inuu inoo barakeeyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa kii uu aqbalo oo khayr iyo nabad iyo barwaaqo iyo dambi dhaafka ilaahay naga siiyo alla inuu ka dhigo. Allahumma salli ala Muhammad. Dhammaan dadka fadhiya ee isu yimid madaxda isimada qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhan ee fadhiya islaan ciise wuxuu oran jiray nin walba salaanta meesha leedahay ka qaado marka sidii baan leenahay oo hadallada xikmadda aan ka baranay weeye dhamaantiin qof waliba taytalkiisa iyo madaxda iyo dhamaan halkaasan rag iyo dumarba idinku salaamaya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullah. golahan iyo shirkan wuxuu ku saabsan yahay nabadgeliyo xabad joojin lagu dhawaaqo dadkii walaalaha ahaa ee shaydaanku ka yara dhex toosay in cagta la geliyo shaydaanka oo la buquujiyo nabadgelyo iyo khayrna looga gudbo inta ka dhiman cid alla cidii ka soo shaqaysay ee hawshatan ilaa iyo maalintii waxay dhaceen ilaa maanta ka shaqaynaysay ilaahay waxaan ka bareeyaa inuu ka abaal mariyo oo janno ugu abaal gudo adduunyadana cimrigooda iyo calafkooda iyo cuudkoodaba barakeeyo آخرنا إلهي أكتي سكرامة يا شرف وين وكسي من إلهي كبرية. إلهي القرآن كوحي كويري لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوليا شاهدتكو يسوي مادان إلهي وحو كسور ريبه قوليال ترسان وح خير لوحا شرسدح قوله oo golahan oo kale uu ka mid yahay dadku ay isugu yimaadaan nabadgeliyo iyo islaax iyo heshiisiin iyo isu xaarasho iyo khayr lagaga showrayo cidii niyad wanaagsan kaga qayb gasha golahayaasha caynkan oo kale ah waxa ilaahay yiri abaalkiisu waa janno wax kale ma aha. sida awgeed ayaa quraanku xitaa wuxuu tilmaamay dadka iska dhaafnin iyo xaaskii markay isqabtaan ayaa ilaahay wuxuu leeyahay cid kale ba iska daayay fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma. nin iyo xaaskii markay isqabtaan wax garad labada oofooda ha loo saaro ba ilaahay yiri haday niyad wanaagsan dadkaasi isugu yimaadaan oo daacad iyo dar ilaahay ah sida dantu ku jirta ilaahay ku duwayaa buu ilaahay yiri. waxaan rajaynayaa isu imaatinka halkan isugu nimi niyad wanaagsan oo aan ilaahay janno kaga doonayno iyo dunidan saan ugu noolaan lahayn ayaa maanta halkan la isugu yimi. dad walaala ah ayaa shaydaanku ka dhex toosay oo ehela oo xidida oo xigaala oo gacala oo muslimiina oo boqolaal iyo kumanaan sano ilaahay isku beeray subxaanahu wa ta'ala. dadkaasi nabi yuusuf quraanka markuu ka hadlay oo walaaladii ay ceel ku rideen oo la iibsaday oo uu boqor noqday oo dalkii la wareegay oo iyagoo abaari hayso oo gaajaysan oo arradan oo dhibaataysan oo odaygii indhabeelay ay u yimaadeen uu soo dhaweeyay oo u dulqaatay wixii dhex maray isagiyo walaaladii wuxuu yiri min ba'di an nazaga shaytaanu bayni wa bayna ikhwati wixii meesha ka dhacayba wuxuu yiri anigiyo walaaladay markii shaydaanku niyada waswaasiyay waswaas shaydaan buu ka soo qaaday wixii meesha ka dhacay wixii ba cafis nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nimankii dayriyay ee yiri boqol halaad madaxiisa lagu furanaya ninkii keena maalintuu ma ka qabsaday oo ay soo tumeen meeshii oo talo maanta say idin yeeli doona ay yiraahdeen wuxuu yiri idhabu fa antum tuluqa iska taga maanta wax la idin haystaa ma jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam. hawsha halkan ka dhacday dad xigaalo walaala aba shaydaanku ka dhex toosay
dad baa dhintay shariicada islaamku dhimashada dhiigga sokeeyaha iyo islaamku waxa ugu daran ee cadaabka aakhira la muto marka gaala laga yimaado gubista ilaahay uu aakhira gubayo gaalnimadooda awgood dhiig muslim baa ku xiga oo ilaahay uu tilmaamay ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما عقوباتك انت لك بالله شيء وحنبي يقول هديد سماوات كملائكة شوكتا لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مؤمن واحد لأكبهم الله في النار هديد سماوات كملائكة شوكتا يقولك انت شوكتا تشيني يا إنسي أيها الشيء هل قف مسلمة دلكي حق ضره إلهي سبحانه وتعالى سيدي أوديهن ضب نار كجرا يا أبو النبي وخطرت أوديك مسلم كإليه وحاويا ما أنت وحي ماشى كدعي شيدان بقى كشقيي وحا ما أنت أين أباهن هاي نيد وناكسن إنه كجايب قال له كجشقينه وحين أباهن هاي دد ولا على أوي دد كان إفي آخرك كلا تجي مايان yaanu cadowgu idinka faa'iideysan yaanu cadowgu idinka faa'iideysan yaanu shisheeyuhu idinka faa'iideysan yaan maxaan ku yiraahdaa dadka aan xumihiina doonaya idinka faa'iideysan dadka madaxda iyo mas'uuliyiinta maxaan ku yiraahdaa wadanka xukumaya waxaanu leenahay dulqaata oo sabra maanta waxaanu leenahay nabadaas aynu madaxa ku wada qaadno waxaanu leenahay ilaahay aynu janno kaga doonno subxaanahu wa ta'ala إن شاء الله هو يدمانيسا إن شاء الله ما صون نقنيسو قف دنتي ما صون نقنيا لكن دت كنول وإن أطلنا دت كنول وإن أطلنا سو نولان لهاي وحيكون مهما هان صوماليدو مركان إيجو دت كهال كم فردية وحي صوماليدو كم مهما هذا حاجات حجال وتهي حوجالنا وتهي حاكمنا وتهي وحكي حابسي وين بسماليدو ترى هذا حاجات هالك هذو فرديان حجال بأوتيه oo dad wada dhashay weeye dadkan wax dhex mareen xaakimiinna waad u tihiin haday dawlad tahay iyo haday isma tahayba xaakimiin baad u tihiin xogogaalna waa u tihiin oo halka ariyaha ku raaci jirteen oo ku korteen oo la idinku guday ee ku guursateen waa taqaanaan wax ka xaabsi weyn baa u yiri maaragtay Soomaalidu tiraahdaa sida awgeed ragogashii waa nabad baynu kaga talinayna ilaahayna ugu dhawaanayna war sidaas oo ma habalankeeno إلهو مرخاتك أخو عدي نبض حماك قشقيسا الله سو هنوني هدان هنون الله لدم عنا الله ينكفوك يشاركو ذا إن الله انتي نبض ربطنا إلهي نبض وحنكبر يا إنو الله قرب قلو وكعاوي إن شاء الله وشمع الله وينقى أقبل يا وحن آدي يا آد أسو تشيرين يا مضحدة دولة زمادة دنوال بوحي دعي دول قادي الصبر هلقاقا قدبو يحاجو إن شاء الله تعالى حاجة أنت سأفردده إسلام بالغا شيء إنك أنت فرديه لأجي يا بيتري إن أنت إذا كمد لواين هكرشها كتشرته أنت ما أنت اسمه يا مدح يا مسؤولين وفردده يا علمية وحجرت هذا يدمن وينه لما ما هذا إسلام تاني كود عايز مركها وش أسوي دمانة إن شاء الله أدبهم هسنتين جزاكم الله خير